munaasabad siyaar loo soo agaasimay oo lagu xusay aabihii tacliinta Soomaaliyeed Maxamuud Axmed Cali oo lagu qabtay hoolka shirarka jaamacadda Burco waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Burco xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka abwaano iyo marti sharaf kale waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salebaan Dirir waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waa qof dhintay oo nool iyo qof nool oo dhintay labada qofka dhintay ee nooli waa xuska maanta aynu u samaynayno Allah u naxariistee waan hadlaawi oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inay waxbarashadu tahay ta kaliya ay dadku ku horumaraan isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi inta looda waxaa ku waajiba raggaada sheegay waxay u baahan tahay raggaada sheegay kudayashay u baahan qofkii doonaya udaysida haddii adiga maalin kula lagugu qabto lagugu dhuso lawadilay kaliga maalin maanta maalin laanta lagu hayo de qofka waxaa looga bayyana isagu waajibkaan la yimaad xaqaa in la siiyo inuu isagu dadaalkaan la yimaado wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo isaga soo afmaray xafladdaasi lagu xusay aabihii tacliinta Soomaaliyeed Maxamuud Axmed Cali ayaa isagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayso sida ay u horumarin lahayd waxbarashada Soomaaliland xuska maalinta tacliinta Maxamuud Cali tacabka noocaas uu ku baahan yahay in bulshadu dhammaanteed ku wada qayb qaadato waxbaynu qaban karaynaa haddaynu isku duubnaano waxbaynu qaban karaynaa haddaynu niyadeedii la nimaado iyo casiimadeedii qalbiga aan hodan ka noqono inbaa wax loo bartaa sida aan iska dayin waxbaynu qabsan si kastaba ha ahaatee munaasabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee lagu xuso mas'uuliyiintii faca weyn ku lahaa horumarinta waxbarashada xilliyadii ay waayo aragnimadu ku yarayd guud ahaan geyiga Soomaalida Shaafic Maxamed Ibraahim Maadiq News Burco.